Axmed Saleebaan oo ku hadlayay afka ganacsatada ilma Seeraar ayaa sheegay inuu waxyeello ka soo gaadhay tan iyo intii la burburiyay goobtan idin muuqata oo goob iyo mareero madaxweynaha Soomaaliland amar ku bixiyay in la baabiyo waxaana uu sheegay in mas'uuliyiinta dawladda hoose aynay ka soo garab wareegin tan iyo intii goobtaasi la burburiyay waxaana uu faahfaahin ka bixiyay waxyeello habeennimadkii xalay tooleed ka soo gaadhay mid ka mid ah gawaadhida qoyska ilma Seeraar dawladda hoose waxay burburisay horta dib ay u eegayaan baan islahayn laakiin ilaa imaka cid ugu soo noqotay iyo cid waxna weydiisay midna ma jirto caawa halka waxa ka dhacay halkan gaarigu uu ku dhacay marka anigu aan watay god biyihii ugu dambeeyay ay sababeen meeshii ay dawladdu jeebisay oo ilaa imaka meel aan guriga ka gallo aan u laanahay dhibta meesha soo gaadhay waa horta dadkii ganacsiga xitaa guriga ku lahaa ilaa imaka meel ay ka galaanna ma leh deewaana aragtaan waxa ka jira meesha iyo godadka qodmay ee guriga hortiisa ah hadii ay saa ku socoto waxa laga yaabaa in guriga qudhiisu xitaa uu dimo waxa aan dawladda safarin u diraya in ay sida meelaha kale ay wax uga qabteen si degdeg ah wax uga qabtaan dhibaatadu ma aha baabuurta oo kaliya xitaa dadkii wadada marayay ee hore u arki jiray iyadoo dadku ay meel laga gudbi karo kala ay tahay ay ilaa ku dhacayaan dadku xitaa oo ay ku dhacday xitaa gabadh markii roob gudaayay